soo dhawaada daawadayaal maanta jiida hore ayaa soo gaaray aad halkan ka arkayseen reerkii loo jiray Axmed Faarax Nuux Axmed Ruush waxba taariikhdiisa laguma faabo mid sax ah baan halkayda ka siinaya ninkay igu beeninaya commentiga ku soo qoro dhulbaantayntii waaweynad way siqaaneen inta yar yar baan maanta u sheegaya waxaan u sheegaya nimankan Axmed Faarax waad maqasha balse Axmed Faarax muxuu yahay Axmed Faarax waxa weeye nimankii u horeeyay ee iyadoo Geeska Afrika ba cashuur lagu aqoon cashuurta ka guri jiray daaro bulaala ya dhadhaabtii ninkii garanaya uu garanaya inta taariikhda waaweyn haysaa way garanaysaa ka soco geeri hagoogan nimankii hogaaminayay ee dhibcaha ku qaatay yahay ninkii hogaaminaya ka taliya xaaji qalaf buu ahaa wala garanaya ninkii gamuutira gabayga muxuu ku qaatay aydin weeye maqaar leen uu gabayga commentiga ku soo qoro commentiga ninka qaabilsan gabayga waayahay gamuuti wuxuu ku qaatay dhibcaha isaguna ninkii waranka ku qaatay shiishka ninkii ku qaatay Faarax liicliic buu ahaa wala garanaya iyo xaaji qalab Allah hayaay dhibcaha halkaas ay ku qaateen waayahay wargeel waa kaayaga wax ku faamo buu waayay buu yiri nimankii daraawiish loola jiray iyadoo daarood iyo isaaqba ka baqo aan xoolaaba laga dhacsan nimankii ka dhacsaday ahaa Axmed Faarax bay ahaa Axmed Gaab nimankii kaga soo dhacsaday daraawiish daaroodku bariga waxa loo jiray col iyo daraawiish ku qaadibi geel ku loo jiray uu ka baqi jiray وبرجع جراد علي يلا لقصاص سبها جراد علي جراد شامع أبيه وبرجع الحجين شريه به وياهي نما كورت شيء ده ورس هو جاري ونما كتاريخنا نوع عصره البحث صو إمشان ودين الله هنا نادر علاد ونما جارين ما أنت هو نوذ جارد نما كاس أن إدي شيء ير كانوا شيء وين كويس كجرنا يعني يكون ونما كتراويش وجهري يجيل كان عصري magaca daraawiish dadka hoos mariyay ayaa Axmed Gaab geeri laga soo dhiciyay magaciisa garan maayo commentiga ku soo qora gabayadii laga tiriyay commentiga laga helo wararta nimankan waa nimanka waxba idin balaarin maayo waa nimankii 1960kii ma maqasheen laancheero shaarwa ka dhex muuqayo buu hodlaba aadan carab loogu yeedha waninkii laha lafdhanadu ma soo aaminaan laamigaan maro goorta aan shaarwuhu ka miiqay halka buu hodla dhexdiisa ahayd لولا على بيجي تشوف دليلودي كرواية لفرنا دوما سو أمينا لامي كان مرأس لباح لما شقية سيدين لولو قوي عاو لبتي سمادة تالا أي فريق لداني قاتاني لحاد يأدون بوحي اللي المسور روغن هل كاسية دو قضب كاسي واكا لكي قبايا نما كاسي ورطا دبعاها يكو قاتين هدي أنكور شغل دبعاها فراها بدنا يكو قاتين وحاي أهايد كوبيا سغاشنكي ورطا هذا عربا يا دوري ستيتني دي قبي markaas uu yiri daarood la xaadsaday miyuu luqunta ka fuuray lugtaad fidisay ii dur yallaabi karweed maxaa ka dambeeyay nimankii Axmed Faarax berigii dambe waxay xasuusiyeen waxay markaa ahaayeen haddii aad libaax tahay buu yiri maxaad ugu labaan weyday nimankan horta waa nimankii kulaha haddii aad libaax tahay maxaad ugu labaan weyday sidii qaalin layliya oo wax badan jara ku laaluufay adigoo lixiib ku ah isaaq luqunta muu dhigtay hadba qolada la dheer sidii dumar mar la raacday warabta warna reer hebel way dhashay waxaas waqtigii yiro markaas horta nimankii sida ku lahaa weeyaan niman maanta la idka sheekeynaya ma waa niman colaada iyo nabadgelyadu waxay tahay si toos ah uga tashado go'aan ka gaara oo masiirkooda iyo go'aankoodu wax meel maraya nimanka maanta idin soo gaaray horta waa nimanka ma fahmaan oo ma buuqaan oo ma hadlaan taariikhduna buugaag qaata la waayba warbal ninkay igu beeninaya intaan sheegay ninkay igu beeninaya inay geeri hagoogan Axmed Faarax inuu geeri hagoogan hogaaminaya dhibco badan oo kalena ku qaatay Axmed Faarax inuu ahaa ninkii iyadoo cashuur bal aqoon dhadhaabta bulaale maanta ay taaladu ka taagantay wax ku cashuuri jiray wuxuu cashuuri jiray daaroodunde Axmed Faarax inuu ahaa nimankii Axmed Gaab geeri u horeeyay daraawiish ka dhacsaday iyadoo dadku masaakiin yahay oo daarood iyo isaaqba laga baqaba daraawiishba nimankii daraawiish ka soo dhacsaday ee waxay ahaayeen batusay in Axmed Faarax ay isku haya nimanka jiida soo gaaray horta caawa nimanka waxaan kaloo arkay nimankii Cibraan loo oran jiray oo meel dhulka hoostiisa rasaas ku soo qaybsanaya caawa waa hada halkan ilaa هذا هو ماشان waxa ku qaybsanaya waa nimankii Cibraan loo oran jiray
dagaal aan cibraan lahayna waa bilaa milix weliba saasay hadda Yuusuf iyo aadan madow ku dameeyaa ciidankii ma bixin hadda wuu joogaa maxaa haddaba loo diyaar garoobay ma weerar ma difaac ma waxaan idin sheegay horta dadkan iyo abar jecladan diyaar garowday inta soo dhaweysana waa ku mahadsan tahay maanta waxaan arkay magaalooyin aad iyo aad rasaasto isdhaafayso lagu soo dhaweynayay dad jecel oo baahan baa soo dhaweeyay idinkuna waa leedin mahad celinayaa waxaan idin sheegayaa horta dadka halkan maraya ma aha weerarku way naga xaaraan balse waa difaac markaanu aragnay ugaadeenoo maanta waxa laaliyo waxay inaan iyo gaari hayeen iyo qori bardalo la soo saaray gaari markaanu aragnay barkado ida yar soo ururiyay oo jiida hore keenay markaanu aragnay reer hagar oo islaam oo soo dhiibay iskurugada yar iyo in raashina markaanu aragnay laba firdhiyo oo ku kulmay laascaanood firdhiyo qura taqaanay waa kii mid kale Axmed Cali Faatax leeyahay soo baxay laba firdhiyo yeeshay nimanka markaanu aragnay jabhadaha noocaasa markaanu aragnay iyadoo dusheeda lagu tashanaya waanu ishayn kari weyn waanu ishayn kari weynay waxay naga noqotay waa intaan lagu dhufan ku dhufa soo ma hadde anagu waxa weerarmeen waa bariyaba waxaanu aragnaa daaroda noo tashanayo oo dusheeda ku tashanay anagaba qarinay baraa bulshada soo gelinay oo noo hanjabiyay maxaa anaga nasiixiyay markaa waayahay waxa ay doonayaan daarood waa maxay hadaba war waxaad ma jeerteen iyo ogaadeen iyo ogayslaba iyo halkii muxuu ahaa kabla laxiyo kumaya iyo dashiishay ay isugu imanayaan ay ku tashanayaan waa maxay waxa ay isugu imanayaan ku tashanayaan waxa weeye sida isaaq una layn lahaayeen waxna uga qaadi lahaayeen ama dal ha noqoto ama maal ha noqoto yaa isku hayataa ma beentayba waaba aragtaano waxaaba idin leeyihiin sidee baynu wax uga qaadnaa wax uga qaadnaaba bay ku leeyihiin maalin walba hortaada ay ku tashanayaan bal maxaa ku sheexiyey annagu calan yar baanu gudinaynaa waxaan doonaynaa ilaa iyo cadag gaarsiino xishood baanu u dhimanaba haddaanu beel ahaan ku dagaalanno siiga ka kici lahayd waddanka siigu dabaylo balse laakiin waxa ilaahay mahadiye maanta haddii Faarax Cabdille Axmed Faarax ugu horreeyay oo jooga maanta kala irsanaya maanta jiidi waxaan arkay rag sii googojinaya giil maxaa lay markuu awrka qooqan arko sii goojiyaa waa lagu yiraahdaa uu sii googojinaya qaar ka tabaabushoonaya baan arkay buu hodla iyo dhilaalo soo joogto ka tabaabushoonaya arkayo kaba doondoonanaya kaba raadinay ilmaha reer aanu weerar manihin difaac baanu nahay dadku waa dad isku wadada laakiin annaga waxaanu soo kiciyo wanaga idin sheegnay dhulbahantaa walba waa shir tuurtuure jirnay maanta bal maxaa ogaadeen noo keenay maxaa ma jeerteen noo keenay maxaa ugays laba noo keenay maxaa warniyow ilmaada rayaalow horta waxa weeye dhulbahanta dagaal kalifa baa la geliyay waana wili alaankaana dabadana lagaga soo wadaa mana yeelino annaga nooma kala socno maanta hadaba dhulbahanta daaro dhamaantii nooma kala socno wixiina soo doonto iska celinayna calanka halkaasaan sii dhiganaanaaba waxa ku socotaan waanu aragnaa wadalkayaga iyo xoolahayaga iyo dadkayaga waxa dishaan waxa qaadataan waxa laysaan waxa ma yeelino waxa inoo balana wixii aad soo urustay soo dagaal gala waxaan si la ballamaya habar jecloy ma dagaal maalin la qaado laga soo noqdo haddii nimankaasina soo doontaan waa in aan weerarka joogtada cidiba ka kala jarin ba gelin hore gelin dambe gelin hore gelin ma xaga ma inta idaa soo urursanayaan bas sugtaan horta anigu horta caawa kabuhu way xidhan yihiin waxaana laga baaqsan karaa sidaan arkayo is urursiga aad arkaysaa bilaash ma hadee warwayn salaamaya dhamaantiin mar kale share gareey barnaamijka subscribe dhaha haddii aad halkan ila soo gaadhay waan salaamaya dhamaantiin